بلد وين حمريو بالبلا بورمية أوذل kaltuun naasir xuseen oo ka timid magaalada burco ayaa kaalinta koowaad ka gashay tartanka gabdhaha da'da yar ee hal-abuurka ah oo ay ka qayb galeen ilaa 100 dumar ah waxayna ku gashay gabaygan باق وحانو ديريا دمان بلادادنيه بيدبا هرقيسيو تشيكتشيغا بدن إلا فافن بلد وين حمريو بالبلا بورمية أوذل بورتين ليو بهديدي سناق بايعيدا هيالا بوصا صحيبها بربرة قعالكا بوهوغلا abaalmarinta gabdhaha da'da yar ee leh hal-abuurka oo sanadkan lagu qabtay caasimadda Djibouti ayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da u qabataa gabdhaha da'da yar si ay ugu soo bandhigaan hal-abuurkooda munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada caasimadda u ah waddanka Djibouti ee Djibouti ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka ee waddankaasi Muumin Xasan Barre wasiirka haweenka ee waddankaasi Muumina Axmed madaxa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da Cabdullaahi Cabdi Sheekh Abwaano iyo hal-abuuro kala duwan oo taageero ugu muujiyay bandhigan ay qabatay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da sanadkii saddexaad wasiirka haweenka Muumina Axmed waxay sheegtay in BBC-da ay uga mahadnaqayaan doorka ay siiyeen haweenka ku hadla afka Soomaaliga waxa meel lagu horumar iyo meel lagu gaaraa waa kolka la ilaashado afka hooyo dhaqan diin fanaaniintuna xagga kama maqno diintu ha noqoto afka hooyo ka noqoto dhaqan ha noqoto fanaaniintu xagga bay joogaan anagu waxaan leenahay asaaska horumarka waa kolka saddexdaashi la ilaashado weeyaan haddaa saddexdaashi la ilaashanin afka hooyo la ilaashanin dhaqanka la ilaashanin diinta la ilaashanin uu fanaankuna nala joogin waxaan u maleynayaa nolosheen waxay noqon lahayd nolol wax ka maqan weeyaan miyay ka noqon lahayd wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka ee waddanka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa sheegay inuu tartankan qayb ka qaadanayo sare u qaadista afka Soomaaliga waxa laga hadlayna waxa weeyeen waa dhaqan waliba ku saabsan ama ku salaysan afka hooyo oo haddana ka sii agabay runtii gabay waan aragnaa walaalkii Abaaba ayaa noo sheegay ragga ugu guntaday inay gabayga curiyaan ama gabdhahaasi waxa ay yiraahdaan iyo waxa yihiin isaga ayaa soo gunaanaday oo soo koobay runtii wuxuu waa hormood iyo hal door wax badan buu ku sheegay marka dambana yar beecday oo haday xumaadaan asaabay noqdaan buuri annagu halka horaan u haysanaa annagu waxaan u haysanaa inay hormood iyo hal door yihiin boqolka haween ee ka qayb galay tartankan waxaa kaalinta saddexaad ka gashay Roodo Saalax oo ka timid magaalada Hargeysa kaalinta labaadna waxaa ku guuleysatay Falastiin Khaliif Yuusuf oo ka timid magaalada Muqdisho halka kaalinta koobaadna ay ku guuleysatay Kaltuun Naasir Xuseen oo ka timid magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer madaxa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ugu dambeyn la hadlay warbaahinta wuxuu sharaxay ujeedka ay ka leeyihiin tartankan aadan ku faraxsanahay in abaalmarintan sanadkii saddexaad ay gashay oo waliba sanadkii saddexaadna Djibouti aan ku bixinayna oo haatan u muuqato inay isu bedelayso hooyigii dhaqanka Soomaaliyeed markaad ka eegtid ciyaaraha dhaqanka iyo waxyaabahaas oo dhan marka hawshaas aadan ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in hablaha la abaalmariyay ee ka kala yimid gobollo kala duwan ee Soomaalida ay degta in halkan lagu abaalmariyay oo abaalmarintoodina ay gudoomeen iyo sida sharafta leh loo soo dhaweeyay iyo sida sharafta leh dadweynaha ay u qaabileen marka hawlahaas oo dhan farxad weyn iyo cajab ay gelinaysaa BBC-da ayaa sanad walba u qabata hablaha hal-abuurka ee da'da yar Shukri Jaamac oo ka timid magaalada Boosaaso ayaa sanadkii hore ku guuleysatay abaalmarinta tartanka gabayada ee BBC-da oo sanadkii saddexaad hadda lagu qabtay waddanka Djibouti Yusuf Cabdi Shire wararka raadiyaha iyo telefishinka SBC